ka lagu yahay weey madaxtinimada qof ma aha waa dad badan oo wada socda weey waxa kaloon jecelahay inaan u mahadnaqo dadkiina sharaf kale ee wadaadkeenu sheekheenu ugu horeeyo si wanaagsan oo hadlay I like that si wanaagsan oo ilbaxnimo ku jirto oo cilmiyeysan oo hadal ana inuu qof wadaadada qaar ba anigu xogaa waan aqaan waa la baray quraanka wadaadada qaar ba shaqadoodu ay tahay inay ka cabsiyaan ya oo ka cabsi uun lagu bilaabo laakiin cabsidu waa halkeego de ilaahay qof aan ka cabsoonin de ma soconayso laakiin wadaadnimadu waa inay noqotaa mid isku xidha adduunyadan aynu ku noolnahay iyo tadambe isku xidha waa inay noqoto oo waliba tanaan ku noolnahay waayo xanuunkeegu imku nahayaat jannadii cadaabtu waa marka dhimato dabadeed ee xisaabta la galo laakiin tan imika ayna haysaa imikadan in horjoogayna haysaa xanuunka adduunyada iyo wanaaggeega marka waxaan jecelnahay musheekhdu inay had iyo jeer ay ku soo daraan hadalkooga ummadda iyo wacdigeega hawlaha ina haysta ee xanuunkooga imika nahayo sida loo daweynaya inay ku soo daraan waa laga maarmaan walaalkina sidaas uu hadlay waliba cilmiyeysan oo deep cilmiyeysan aad iyo aad buu isaguna u mahadsan yahay iyo intiina kale halka timid especially the youth waxa kaloon jecelahay dee nin weyn oo Soomaaliya ayaa shalay naga geeriyooday maanta la soo xabaalay waxaan jeclaan lahaa hal daqiiqo intaan qaadano inaan faatixada isagana halkan aan uga marno de ilaahay inuu naxariistii geeyo markaan hal daqiiqo faatixada qof walba ha akhriyo General Holif okay waan dadejin waayo waxaan rabaa inaan su'aalaha iyo isla galno hadalka marka waxaan isku day inaan ka dhigo hadalkii ugu gaabnaayeen soo jeediyo muddo far badan ayaan isku day doonaa shalay baan u sheegay community aan wada hadlaynay kelmadda la yiraahdo professor waxay ka timaadaa ficil ya verb ficilka la yiraahdo professna waxa weeye macnaheedu hadalka siida laakiin waa inuu hadal noqdo macnaysan oo de qiimo leh oo de cilmi ku fadhiya laakiin siida hadalka marka hadaad professor meel soo joogsaad ku tiraahdo profess waa inaad sugtaanood gaajootaanood fadhidaan maanta oo dhan kama dharagna hadalka de maanta oo dhan baad wax akhriyaysaa maanta oo dhan iyo caawa dhan baad wax akhriyaysaa cid aad la wadaagtay ayaad u baahanta marka profess waana iska ilaalisan professorad waqti u qabataan hadii kale waad ku aad baad ugu daali doonta marka waan isku day doonaa inaan profess xoog la gelin oo xogaa soo urursan title-ka iyo mawduuca sidaan u soo jeediyay markaan Cabdulqaadir iyo Xamdi ka wada hadlaynay waxaan ku yiri Somalia new time new leadership question mark waa su'aal la saara oo su'aasha laga jawaabo waqti cusub miyuu yimid hoggaan cusub miyuu yimid waa in su'aasha laga jawaabo hadii kale de hadalku waxaan maleynayaa inaanu faa'iido badan yeelanayn marka waxaan jecelahay inaan ka jawaabo su'aasha at the end inaan jawaabta bixiyo haday shaafidana waa okay hadii kalena you can challenge me or to maya sida ma have you looked at this sidan marka su'aalihiina waan adban yan sugay jawaabta ka jawaabida su'aasha waqti cusub iyo hoggaan cusub miyuu yimid jawaabtaas waxay u baahan tahay inta aan de maya midna la oran in waqtiga cusub ki ka weynaa all time waqtigii ka weynaa la taabto la macnayo ay u baahan tahay way see loo kala garanay hadii kale de waqtiga cusub iyo kii ka weynaaye all time see loo garanay hadaan la kala saar marka kaasan doonay horta in yaro kooban waqtiga hore all time ee laga soo gudbay baan isku daynay inaan ka soo gudubno iyo dhibaatooyinkii la socday waqtiga inaan iyaga in yar taabto taa markaan sameeyo waxaan idisinayaa yani maniyuga hadalka inaan dabadeetana isku dayo inaan ka hadlo dadkii yaa mas'uul ka noqday burburkii ummadda Soomaalida oo maaha qof iyo categories baan doonayaa inaan ka hadlo yaa mas'uul ka noqday burburka ummadda Soomaalida ilaa maanta meel laga soo qabto ay aad iyo aad u adag tahay taa waxaan ku saddexaynayaa inaan dabadeeto wax ka sheego aan hadal ka jeediyo gaaban madaxweynaha waan saaxiib aanu nahay
president xasan sheekh maxamuud iyo dowladda uu isagu abuuray inay keentay isbeddel iyo in kale inaan ka hadlo oo de waa markaa jawaabtii su-aashaas ku xidhnayd waxaana laga yaabaa walaashii xamdi hadalkii ay tidhi ee ahaya de ninkan samatar professorku hadduu baarlimanka ku jiro muxuu dhulkan u wareegayaa inay su-aashaa jawaabteedu ka soo baxda ayaan filayaa halka haddii kale de waynu dib baynu ugu noqon doonaa marka horta sidaas ayay arintaydu u eeg tahay saddexdaa qodob waktiga hore all time wixii ka horreeyey September 10keygii 2012 ayaan leeyahay yani waqti oo particularly 20kii sanadood ka horreeyey inta iyadoo dib loo noqon karay ilaa 60kii anagu haddaanu nahay xisbiga heel qaran waanu macnaynay taas formula yaroo gaaban oo aad iyo aad u dhib yar laakiin markaad furfurto jaranjarooyin badan leh oo complex ah laakiin de intiina mathematics-kana baratay waa taqaanaano waxa la yidhaahaa mathematics waxa jira waxa la yidhaahaa axiom axiom axiomku waxa weeye formula yar ood soo saarayso markaa dabeeto iyadii waxay ka wakiil tahay very complex wax ballaadhan oo aad iyo aad u fara badan so aad garmaysid Einstein waad garanaysaan formuladiisa yara physics waa formula yar oo dhib yar laakiin markaad furto dee waxaad macnaynaysaa badee maxaan ku dhahay adduunyadii physicskii baa iyad hawlo badan ka macnaynaysa marka anaku formula yar baanu soo saarnay oo la yidhaaho 3+1 saddex hal lagu daray 3+1 maxay yihiin bay markaa noqonaysaa haddaad waqtigaa ballaadhan aynu kasoo gudubnay aan leenahay ee Soomaaliya ay burburtay maxaa lagu macnayn karaa 3+1 saddex hal lagu daray maxay yihiin saddexdu waa heel qaran weeyi formulahiisa campaignkan aanu ku galnay kow waxa weeyi saddexda ta ugu horeysa waxa weeyi de wixii Soomaalinimo la odhan jiray ee dadku ay wadaagayeen islaamnimo ee dadku ay wadaagayeen burbur weyn labadaba inuu gaadhay oo de dad muslim ah isgaraacay oo isbaabiyo oo dilka ka dhexdhacay iyo burburka iyo baaba ka dhexdhacay marna aanad sunayn war dadkana islaamad qof muslim qofka muslimka kale sidaa u galo dad wada dhashay oo Soomaalinimo oo af iyo dhiig iyo wax dhaqan iyo wax walba isku xidhay inay sidaa yeelaan waa civic belonging inay sidaa u burburto waa one la kala tagana marka dambe doo qaarkood ay yiraahdeen anagu waanu baxnay oo shaqo kuma lihin Soomaaliya diistay ahaan jirtay independent country aanu raadsan imakana ay sii soo socoto kala gongoyska Cabdulqaadir uu ka hadlayay ay sii socoto marka meeshii biyuhu iskugu soo ururayeen la laayahay civic belonging ay sidaa u burburto saddexda talabaad waxa weeye wixii ummadii ay lahaan jirtay buurihii dhulka lagu cuslaynayo kale sidii timacada odhan jiray timacada wuxuu odhan jiray ilaahay wuxuu buuraha u abuuray in dhulka lagu cuslayo si aanu dhulka u dhaqaaqin like a paperweight waad garanaysaan in la dhigo kale marka national institutions dadku ay leeyihiin dadkii is ogolay waxay dhistaan institutions ay wada leeyihiin oo de state-kan waad garanaysaan haddaanay dadkani islahayn oona is ogolayn I think caasimadiina waa Tacoma Soma Colombia dee may jirteen Olympia may jirteen I have never been to Olympia may jirteen and Washington state-kuna si kaloo nahaan lah magaaladan aad ku nooshihiin caasimada quruxda badan lehina si kale noqon lahayd oo kala xidhnaan lahayd la isku ma talaabeen sida Cabdulqaadir uu sheegay de wadada xiran bay noqon lahayd oo xaqana internet degan looma tagi karo kuwana internet degan looma tagi karo marka national institutions the federal government kan hadalkiisa badaad oo markii dhaqaalaha Mareykanku dhawaan oo burburka soo gaaray qarka inuu ka dhaco oo General Motors oo kaco ay ku dhawaatay de waxa markii dambe yimid dawladda Mareykanku inay xoolo galisatay oo kambanigii adduunyada ugu weynaa baabuurta sameynayay General Motors in aw kaco oo jeebkiisa u marnaa iyo in dib loo abuuro ayay noqotay cid kale oo abuur dib soo abuuri kartaana ma jirto waa inay dawladii timaadaa dhexe ee federaalku oo xoolaha galisa waa ka dib soo noqday now it is again the biggest company car making company in the world so institutions way dhakhtarku la tagaa waa institution jaamacaddu waa institution
laakiin waxa ummad dhexda u yaala oo ah institutionka ugu weyn waxa kale oo dhan isku haya baayac mushtariga maanta hadaan institutionka jirin xoolahooga la dhici inta la tago bakhaarka ayaa laga qaado inaanu isku family lahayba halkan bakhaar ka furtay dhawaan shalay baan u tiri soo arkay is doing well laakiin haddaanay dawladda jirin ilaalisa te xoolaha ballaaran ee meesha u dhigta maqsin inta leeg malaakaba weyn ayay xoolo ka buuxaan te waa loo tagay waa laga qaadan barito laakiin waxa isku haleynaya waxa weeye de dawladku ilaaliso institution ayaa jirta koorka ummadana waxa gunta oo ah institutionsku waxa weeye dawlad wax la yiraahdo dad aan dawlad lahayn ay isla ogol yihiin oo dhisan oo quwad leh oo xalaala aan lahayna waligoodba qof ah wanaagsanadaan meel alla meel ay gaarayaan ma jirto marka dambana cadawguna wuu soo haliilayaa waayo difaac ma leh wax kale wax ilaaliyo ma leh iyaguna gudahooga wax kale ilaaliyo ma leh oo way isku tacaddii marka dawladda waxa la yiraahdo government state waxa la yiraahdo ayaa ah saldhiga ummadii ay ku leedahay institutions ka ay burto halkaas baroosinka ugu weyn waa halka way kaasi haduu ka baxo waxa kale oo dhan ba daadaadanay saddexaad 3+1 baan idin waa hore waa dad isleh oo is ogol civic belonging isleh oo is ogol talabaad waa national institutions dad ay leeyihiin xafiisyo dawladeed oo shaqeeya laakiin koorkeegu uu yahay dawladda dhisan iyo madaxda ay tahay saddexaadna waxa weeye leadership waa hoggaan ummadana hadduu hoggaanku Greek hore waxay oran jireen long ago the Greeks long time ago ma ku imka oran jiray kalluunku markuu qurmayo waxay ka bilaabantaa qurunkaasu madaxa fish rots first from the head qorta ayuu ka qurmaa kalluunku deetanaynta kale ayay urti iyo qurunku gaadha haddii hoggaanku uu ka xumaadana waxa weeye sida kalluunka ee qorto ay ka qurmayso inta kalena marka dambe way gaaraysaa marka hoggaan la'aantuna iyo hoggaan caafimaad qabo oo la'aantuna waa ta saddexaad hoggaanna waxa lagu gartaa anagu aanu hadaan anahay hel qaran saddex amuurood baa lagu gartaa Abdulqaadir dadkii ka shaqeeyay arinta sida la isku dubaridaya ayuu kamid ahaa shirar badan oo galnay waxa weeye hoggaan horta marka hore waa team waa inay noqdaan kutlad wada socoto qof qoran kalidii ma noqonay Axmed Samatar baa madaxweyne noqonaya kalida wax alla wax qaban karaysa ma jirto maalinta ugu horeysa ku faysa waa inay team ballaaran oo gundeeri ay ku ag joogan oo sida kartida marka waxa weeye inay vision aragti dheer leadership wata lagu garto way hoggaanka aragti dheer ma aha un kolba waxa maalinta jooga laakiin inaad ka fikiri karto oo arki karto waxa soo socda oo inta tagto waxa soo socda ishaadu gaari kartay maskaxdaadu ad ka soo noqoto dadkii uga waranto oo tada waxa soo socda hadayna sida yeerin sidaas ay noqon hadaan sida yeelna sidaas ay noqon ad saa ugu ballaariso oo dadku ay ka toosaan maalinta waxa taagan waxa soo socda hadii kale generationsku sida iskugu xidhmayaan baba dhibaato noqonaysa hadaan vision caynkaasi jir waayo araga dheeri wuxuu ku tusayaa caruurta la dhalay iyo dadka soo socda waxa ay u baahan yihiin iyo qodxaha laga hor qaaday iyo boholaha laga duwaya ayay u baahan tahay iyaguna marka halka ay uga sii dhaqaaqaan oo ay uga sii duuran ay quwad uga sii yeeshaan marka vision in leedahay leadership waxa lagu gartaa kale hoggaanka karti the vision ka adijinaysa inaad leedahay awoodii iyo kartidii aad ku wadi lahayd in leedahay haddii kale riyay noqonaysaa de waad iska riyoonaysaa inaad leedahay awoodii aad ku dhaqaajin lahayd fikradda dheer ee aad leedahay oo taariikhdaada ay ku jirto lagugu yaqaan ma aha un maanta soo baxo waxaan sameyn doona de su'aasha la isweydiin waxa weeye haduu hebel oranay waxaan sameyn doona muxuu sameeyay intii hore qofkan la muddo soo noolaay muxuu tahay taariikhdiisa oo halka marxatiga laga helo background-kaaga inaad kartida leedahay saddexaadna waxa weeye ethics edeb qofku inuu leeyahay de edebtuna waxa anigu waxaan qabaata ugu weyni waxa weeye inaad leedahay karti ad ku ogaato adigu limitationskaaga waxaana intay taagtaadu tahay ilaahay unba quwad leh wax walba qaban karta bini aadam waligaaba intaad BA masters 2 masters degrees PhD professor ban jaamacad ka ahaa for 30 years 30 sanadood 18 sanadood diin baan ahaa haddana taagtaydu aad bay u yarta aad bay u yarta soo adamaad gar
laakiin waa haddana in laga arko inaad wax fulin karto taariikhdaada laga garto ethicska markaa edebta waxa ugu weyn qofku inuu cadaalad aaminsan yahay cadaaladna ku dhaqmo anu ma garanayo waxa la yidhaaho ethics dad edeb leh oon cadaalad haddana ku joogjoogsanaya cadaaladda labadaas isma qaban karaya shayga ugu weyn ee cadaalad lagu garto qofku inuu edeb leeyahay wuu aaminsan yahay waana ku dhaqmaa rag iyo dumar inay cadaalad noqoto taasna way aad bay nooga maqan tahay maanta talaabada soo raacda ethicska waxa weeye qofku dee inuu ka xishoodo musuqmaasuq iyo laaluush iyo corruption inaad ka xishoodo labadaas ugu weyn waxa soo raaca waxa weeye qawaaniinta dee la dejiyo inaad fulinayso oo aad ku soconayso laakiin anigu waxa ila tahay ethics waxa xundhur oo ah cadaalad qofku inuu aaminsan yahay diinta islaamkana adeegad waxay diimaha kale kaga duwan tahay waxyaabo badan baynu diimaha kale iska shaabahnaa oo diimuhu meel bay ka soo wada baxeen saadamaadkan laakiin waxyaabaha aynu kaga duwanayna diinta islaamka anigu waan odhanay sheekha laga yaabaa iga aqoon badan oo laga yaabaa inuu si kale ka wanaagsan u macnayo anigu se waxaan aaminsanahay diinta islaamka waxa kelmadda xundhurta wey marka bini aadamku ay wada dhaqmayaan alcadaala waa cadaalad wey justice saadamaadkan marka dadka leadershipku justice haddaanu muushin ethics ma jiro waa wax kale ayaa socda waa saddexdii waa kuwa plus one maxaa soo raaca waxaa soo raaca halkan lagu darayaa siyaasaddii dibadda ummadda soomaalidu siyaasadda dibadda ilan adduunyaynu ku noolnahay deris baynu ku noolnahay sheekhu waa kii taataabtay taariikhdaas tii hore iyo tataagan maanta way isku xidhan yihiin deris baynu leenahay adduunyadii kale ballaadhnayd ya oo 200 oo wadan in ka badan ah ayaa jira oo qaarkood adduunyada inay yeeshaan doonaya ya qaarkood adiga inay ku yeeshaan doonaya saadamad qaarkood doonaya inay si wanaagsan u saaxiibtaan oo wax kula qabtaan doonaya sidaad adduunyada ula dhaqmayso u fahmayso inaad ka faa'iideysto waliba wadan jajabay oo burburay uu u baahan yahay kaalmo adduunyo xoog leh anagu haddaanu hil qaranahay waxaan ku qiyaasnay ugu yaraan 1.5 billion dollars 1 bilyan iyo nus bilyan kuwaad garanaysana waxa weeye 100 sooma 1 milyan ha 1 milyan iyo half ya 500 milyan soo adamaadkan waa 1 milyan iyo 500 milyan iyo ugu yaraan sanadkii Soomaaliya ay u baahan tahay in dib loo soo dhiso magaalada Muqdisho aan joogay 6 bilood oo qura ayaa u baahan minimum 400 oo milyan oo dollar magaalada in lagu soo dhiso wadooyinkeega leertrigeega daaraheega wax walba way burbureen marka adduunyada deynta ma keeni karayno dad faqiirayno ma keeni karayno wax waynu keeni waa loo baahan yahay oo ma oranayno oo intanaanu haysanaa wax noogu dara qolada galbeedka ka timaada waxaanu dhinahnaa iska wax u qabso ya intanaan haysanaa wax noogu dara ya oo tii hore way dhamaatay dhiibtii way dhamaatay oo waa laga daalo cid ku dhiibaysa ma jirto ya adaa reerkaaga ka daaray hadii dhiibun lagu ilaa goorul laakiin intanaan haystaa wax igu dar waxa weeye waa capacity cusub wey marka international relations ka sida looga shaqeynayo iyadana waxaan qabnaa inay aad u baabaaday waxa bedelay wixii xaragadii Soomaalida iyo sidii loo yaqaanay international relations way bedelantay waxay imika noqotay the last 20 years contempt ka waxa la yiraahdo Ingiriisiga yaa yaqsi laga yaqsoonayo la qoorsanayo oo Soomaali haddaan la odhanna oo afka laga odhana body language kaad ka garanaysaa qofku siduu kula hadlayo jirkiisu siduu yahay yaad ka garanaysaa waan soo arkay daanu I have seen this I met leaders in in the world but qaar baan saran waad ka garanaysaa amba United Nations aan noqdaan amba dawladda kale ka socdaan waynu qiimaheeni dhulku galay internationally Soomaali markaa tidaa waxaan joogay Ramallah Palestine 6 years ago or 5 years ago ayanti jaamacad ku taala oo Berzeit la yiraahdo agteedan lecture waxa ka akhri Ramallah waxaan tagay meel hallway oo laga dood ay ka socotay Falastiin oo markii doodii arrintii ahayd Gaza iyo West Bank la isku hayo labadii xisbi waan dhageystay halka damaan iska fadhiistay iyagan martuha halka damaan iska fadhiistay nin markay doodii aad u kululaatay warsan nahay saman inama kharajinayso waa in waxayna bedelna ayaa nin baa istaagay waa dhakhtar Falastiini oo dhakhtar ah gacantu taagay
meesha waxa jooga ilaa 800 oo qof waa big hall oo waxa noo yaala daawanaysa television weyn ba guriga la ka daawanaysa xagga dambe fadhiyo markaas uu istaagay markaas uu wixii dhageystay haddaynu sidan u sii kala qaybsanayno sidan noqono waa Falastiin ciqaab waxaynu geli meel aynaan ka soo bixi karin yaynaa noqon we don't want to be like the Somalis yaynaa noqon sida Soomaalida wallahi billah yaynaa noqon sida Soomaalida يعني مثل كعين كاسة أيها الدنيا دي قلي مركز دون السينة كهذا الشهر كأوجحون أي مجتمع وقرأ صوالدها المسكيل على نسيان نقولس صادق قرمشت مركز أرنتها كونتمتك يا دي تنوحة كحجة كل بس سيد دون أنت لقى إن manipulation سيد دون لقى يلو كل بين لاير lawyer دو لاير هو سيد ديال سنة كون كلا lawyer دو وأنا تانا وانكسر كحمر you can see نيروبي دوادرت نيروبي واحد كلا لقى ما قبض عاصمة دي صوماليا نقط وهالك لقوش شيلة صومالية لقوش شيلة manipulation كلا لقوش سميه هذا كرميس اللي قصوا صار ما دحضة قار كود دول كلا صور دقو وان وصار كتان مركا سياسة دي بدون السدا أي فول حنته أنا كهيل قرنات هاي إنتاس أيام أستاذ عن معنا واحد بدن باكوه سيد قالاس يو عافمات كي education لكن واحد لما جاري كره حتى صد أفرت 3+1 أنت صد هذا يمد كهتان لقى جود بين on هو بلوسم يسن هو كلام ما جاري كريس دقالة ما سود سكريس ما قال هذا مقدشوا قد أنا سود سكرين إسكت واحد كلام طيب هل كاتا عندكم واحد دنيا كويكلي إن أوجد بو يا أرمهن قرن صومالي بربرية يا مسؤول كاو بربرية وهي هدان لإسلاق قرن ده هلك قوانكو كبلا ما يسدو يها هدان لإسلاق قرن وحبا إنو هقاقي مايا هدان وحبا إنو هقاقي ندي مركا إن لتشدو غير والبا ماشو مريو كو حبشي راعة كو جيبوتي راعة كو بدا كلا قلا كو كينيا راعة ده إن لا يسفصحو لك على التقدي ينو قنص هدان رمت اللقوة هذا أنا وحن قبا يدون أنا لما ينكرين مانتا in ay jiraan meelo loo raaci karo dhibaatada wadanka ka dhacda waxa ugu horeeya dadka qaranka jabintiisa iyo kala tageena waxa ugu horeeya kow aan oran karaa community-ga anigu aan ka yimid ee waqooyiga Somaliland British Somaliland loo rinjir ka yimid oo siday doonaanba ha u tashadaan ay yiri annaka nama khaarajinayso jamhuuriyaddii nama khaarajinayso bal Soomaalida kale ballaaran hay noo dambeysay walaalkay oo ka hadlay hay noo dambeysay jamhuuriyaddina ma khaarajinayso waan baxaynaa annagu marka waan baxnay nabadgelyo wixii kale isku darsanayno waa halkayga laakiin laba dawladood oo kala gooni ah ayaan xuduudkina waa akid deegaan gumaysigu Somaliland loo oran jiray sidaas aan ku baxaynaa nabadgelyo de markaad sidaa tidaado qarankii waa jug baad gaarsiisay waa iyo wada jirkii Soomaalida waa kow halka waxa taala eed baatal waxay eed u taalaana de iyagu may oran inta ummadda Soomaaliyeed u digeen may oran dhageysta Soomaaliyeedna maqla waa jamhuuriyadan ka hadlaya bal inta kale ay noo dameysay annagu arrimaanu tabanayna kow laba saddex afar baanu tabanayna sidaasaanan u macnaynayna in wax laga qabtaan doonayna waqtiga caynkaasna in wax laga qabtaan doonayna haddii aan wax laga qabanna iminkaan idiin sheegaynaaye dee cididan nagama lehe waan dhaqaaqnay ogaada at least intaa in la yidhaahayd lama odhan waa la dhaqaaqay halkaa markaa naafo weyn ayaa qarankii ummadda Soomaalida ka gaaray waa kow oo the civic life kan ka hadlayay de markaa waa la kala tag yaa kale ka mas'uula waxa kaloo ka mas'uula dadka calanka haysta ee unionistka calanka haysta ee xamar fadhiya particularly meelo kalena way joogaan laakiin xamar fadhiya calanka haysta calankana haysta xisaab yaro kalena hoosta ku wata oon qaran iyo waxba shaqo ku lahayn hoosta ku wadata qolooyinkiina baananka iyo Cabdulqaadir oo kale iyo accounting ka shaqeeyay kelmadaad leedihiin la yiraahdo inside trading ya inside trading يعني يونيون كينا وان هيا لكن حساب كله يا أيه هوست كوجرت مركز دتك الصوماليات أولي علن كي هيا أو حرون تدونا أي مقدشة هاي خسارها ودن كجاري أي كم التهاي يجبني ذا جاري
waayo waxa weeye dhanna calankii baa laga sitaa dhanna hawlo kale oon calanka shaqo ku lahayn oo qabiil ugu horeeyo ayaa ku jira anuu runtaan idiin sheegaya soo degan maysta at least sidaan u arkayo hadday maxaan ku rahaayay idan you feel itchy too bad waa nasiib daro but I have to say this anuu xamar waxaan ku soo arkay xamdina ay markhaati ka tahay calankii oo la sito oo haddana la leeyahay waddankan waxa madax ka noqon kara uun amba qof daarooda amba qof hawiye ah inta kalena waa second class citizens ولينا سيدا بحسابتا ومينا وضع هذا waayo markaad sidaa u hadasho waxaad xoojinaysaa dadka doonaya inay unionki ka baxaan oo iska tagaan taanu waa gabile meel la yiraahdo ka mid ah Hargeysa u jirta 30 mayl haddii sidaa lagu hadlayo xamar maxaan ka qabtaa xamar you have to leave waana marka Hargeysa taga soo aad garmaysid xisaabtaana sidaba wali looga mooda xisaabtamin hoosta se waa laga wada ogyahay that's what I mean by inside trading yeah oo xamar ku soo arkay daarood iyo hawiye oo dhanna ka tartamaya dhanna leh haddana anigu deebtan helo tan kala adaa iska leh ya sidaas inta kalena Soomaali weyn la leeyahay ma soconayso it just won't happen so the garmis halkaasina taas aniga waxay ii tahay campaign cusub arinta inaan galo kuma xumaynayo walaalahay oo daarooda xamdi iyo Abdulqaadir waa ayad and they are the major supporters and there are many others hil qaran ku jira and the same thing with the Hawiya community so the garmis dadweynahan uu kama hadlay waxaan ka hadlayaa political class ya dadka siyaasadda ka dhigtay shaqada ayaan ka hadlay dadka Soomaaliyeed daaroodka iyo hawiye Soomaalida kale la qabaan gaajada iyo faqriga iyo nabadgelyo la'aanta iyo cudurka iyo biyo xumida waan soo arkay 650,000 ayaan ku soo arkay dabaabon cid ugu tagin cid kale qof madax Soomaali ama madaxnimo doonaya ama madax noqday ugu tagay meesha ma jirto waa inay joogeen 20 sanadood ya oo qaar kood baa ku noqday ayayooyin iyo maxaan ku rahay iyo awoyaal ku noqday soo garmays marka waxaan ka hadlayaa ifahma waxaan ka hadlayaa waxa weeye political class tabaqada yar ee siyaasadda shaqada ka dhigatay oo dhaqaalaha iyo siyaasadda isku xidhatay taasaan ka hadlayaa laakiin dadkii caadiga ah Soomaaliyeed meesha doonaan ha joogaan whether they are in Galkayo or Bosaso or whether they are in Hargeysa or whether they are in other places gaajadu waa laga siman yahay iyo faqriga iyo aqoon darrada iyo tacabkeena haysto laakiin waa dadka siyaasadda ku jira marka aniga ajenda cusub ay tahay arinta horta inaan qabo soo tamad waan ka daalnay waxaan af Ingiriisiga ku yiri duopoly monopoly waa company qura wax walba leh monopoly duopoly waxa weeye laba company oo wax walba leh ya marka labadan company ee Soomaaliyeed wax walba waxa sheeganaya ma soconayso it can't waa inuu ajenda kala sameysanayo si kale oo dadku ku kala baxaan oo doodo ay ku kala baxdo waa in sameysana hadii kale albaabadu way naga xidhay taasina waa tii unionists waxa soo raacay oo aad iyo aad anigu aan u arkay in iyaduna dhibaato keenayso Abdulqaadirna hadalka afka wuu ku dhuftay and he is right in dad la soo baxay noocyo walba leh oo meel walba jooga Somali Republic wixii la oran jiray oo la soo baxay in wadanka la sii kala furfuro oo la sameeyo what I have called tribal mini states in la sameeyo imaka maraya 30 in ka badan wax magacyadana maqalnay 30 in ka badan hudaalka aniga xamdi aanu deganina headquarterka noo ahayd dad wanaagsan baanu kula kulan laakiin waxaan soo aragnay inta madaxweynaha ana gobolkaas madaxweynaha u ahay ama gobolka madaxweynaha qofka oo ayaan la tartamayaan doonaya madaxweynaha u noqdo waad yaabid inta madaxweynaha horta kelmadaha qaar kood wadanka Soomaalida haday lacag ahaan lahaayeen inflationka ku dhacay cidimay qaadateen da waxa kamida kelmadda presidentka madaxweyne inflationka ku dhacay waa yaabe waa sida professorka oo kale professorna waa la wada sheegtaa soo hadamaadka marka wax badan oo sida wada qiimo dhacay oo inflationkaasi ku dhacay waxa kamida waxa keenay in wadanka la sii googooyo these tribal mini states Abdulqaadir ka hadlayay la sameeyo oo waliba inta soo socotay u sii haliilaysa oo xitaa kuwa imika jira doonaya inay sii googooyaan ya ayaa iyadana ka marxaatiya sababna oo keenayna burburka ummadda ilaa maanta haysta waxa soo raaca
4.5 dhan haddaad ka eegto dadka qaarkii waxay ku odhanayaan waniyo khayr yar baa ku jiro oo ummadii Soomaaliyeed dadkii qarsoonaa submerged dadkii qarsoonaa ayay u siisay inay helaan in la arko oo ay soo fadhiistaan miiska. And there is some logic to that. Laakiin markaad xisaabta buuxda saartay qaranka dhismihiisa waxay noqonaysaa in dib loo xalaaleeyo dib loo xalaal laga dhigo waxay naga xaraan oo ah in dadka sida loo kala saaro waliba inta la kala saaro in la yiraahdo qaarna way buuxaan full qaarna waa nus in laga dhigo. Anu waxaan ku yiraahdaa dadka inoogu ilbaxsan and I'm willing to make that argument. waliba markay timaado skills ay timaado dadka Soomaali ugu ilbaxsan taariikhiyan waa dadka banaadiriga la yiraahdo. way jiraan magaalooyin yaryar oo saylac bari ay ahaan jirtay waxaas way jirtay laakiin degmahan marka la eego dadka banaadirigu waa dadka inoogu ilbaxsan. dadka inoogu shaqo badan ee hawsha wada ee 24 saacadood shaqada qabanaya waliba shaqada Soomaalida kale ay ka faanto qabanayaan waa dadka la yiraahdo jareerta. labadaasuna de waxay albaabkaas lagu xidhay madaxweyne ma noqon karaan. waan soo aragnay xamar ya laguma tirinayo iyagoo codkoogii waxa la kala qaadqaato moogiye albaabkaas sare ma soo gali karayaan they can't soo dhamadkan. marka 4.5 na waxay dhalisay uqdada cusub iyo in dambi laga galo anu dadka aan qabo inay yihiin dadka Soomaalida ugu ilbaxsan oo banaadiriga on soo arkay dad guryahoogii oo yaala magaalada Muqdisho anu hormarnay u leeyahay inta sekada markaysa ana reerkayga family-ga hooyada iyo aabbahay baa dhis laakiin cid kale ku jirto and you dare not go there and say this is mine. so the government marka 4.5 waxay keentay in inakana ayna kala qaybiso ay ina geliso inteenan way buuxda la leeyahay ya false maxaan ku dhahay confidence nin reehbal wadano reehbal baana ay geliso dadka kalena ay ka dhigto second class citizens ayayna gelisay. taasina waxay ka mas'uul tahay qaranka burburkiisa iyo baabiisa oo cid qaranka ara hadlaysa arkay sidee waxaanu bal lagu soo hordhigi markaad sheekaysanaysaa. aan u gudbo arintii dawladdan iyo waqtigan inuu cusub yahay in kale aan soo gabagabeeyay. dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxda uu ka yahay daadeedu way yartahay wali waa 6 bilood although that's very important 6 months is important lakin relative time waa marka in critiga aw xakama yeesho waa important oo de intay soo baxayso iyadoo buuxda warkaygu soo baxayo in waa in laga dhigo edeb loo yeelo hadalka oo lagu qiyaaso waqtiga waa important. laakiin waynu haynaa haddii maxkamad la joogo enough evidence ina siisa waqtigan imika aan joogno inaan gaadhno conclusion ku meel gaadh ah in la gaadho ya tentative judgment inaan samayno aan waxaan qabaa in la gaadhay. markaas jawaabteedu waxa weeye maya waqti cusub ma jawaabteedu waxa weeye waqti cusub ma haddii se la sii xoqo waqti cusub waxay ku tahay de madaxweynihii Shariif ayaa shaqadii ka baxay Xasan Sheekh baa bedelay oo laba qof oo kala gooni ah. yes at least at the level of immediate appearance arag waa laba qof oo kala gooni iskuma eeka maxaan ku lahaay wajigoogu iskuma eeka siday u hadlaan iskuma eeka waa kala gooni. so in that sense waa waqti waa wax cusub. dawladda la dhisay haddaad sidaa u eegto ساعد برامج سركي هراء عبد الولي دكتور بروفيسور عبد الولي وكدوين هاي واحد لكن ده هالكاس ده وهالك عرورته كعيار يسوي ده فرق عين كاس هالك عرورته كعيار يسوي وين دعنا هذا دون سدين تسميه very clear distinctions جوابتي ده مركب وحنو له هاي مايا وقت عصب معها so far واتن أسباب تدو كو
anigu xasan waan aqaana dee maanaan soo wada korin aniga probably 5-6 sanadood wuu geeriyahay maanaan soo wada korin hore aad isku maanaan isku aqoon waxaan xasan weligay la kulmay 2010 يعني عبد القادر شروين وجيبوتي أن كقيب قالوا 80 قف لكاني I was chairing and أنا كاها قدومي شركات تضمن عشو السعودية عريمات صومالية اللي قاعد لي بايع مشتركي ومشايخي متعلمين ضد حقوق للسكو كاني ميل بكي يمد هرقيسة كي يمد بوساسة كي يمد بيدبا كي يمد مقدشة كي يمد كزماعية كي يمد ميلا بدن كي يمد مركز تذكر كوجري وأنا أكثر سنجري in fact I remember now إسقى حسوسي وأكثر سنة 2010 هل كاسن سكوبر الناس السلام عليكم يا مكان وحن لكن سبر الناس حمر كان بين كمركي اللي جري أنا وحمر مركان تجي بشي ماي تبيا قضية دي تجي أيانو سبر الناس حزبي هيل قرنية حزبي حسن مركا أو أبورية إن أو أبور ماي مركا إن لا يسقط وين نقدم بيين إن لا يسقط درو أيانو إن بدن كوض هذا لا يو واحد بدن بين لبده حزبي وداعن أيانو سكبرن حسن أنت نكوقان ونين أذبله دني مدي سنين أنت نكوقان نورا أكسنت أنا ولي حذب بلودن سبرناي أنت أصلا كوارك أذبله دني مدي سنين نورا أكسنت humble in many ways ayaan ku arkay laakiin de taas waa madaxweynenimada taas sida u soo galayso ayay dood noqonaysaa say u soo madaxweynenimada soo galayso xasan anigu ilaa imka ma hayo wadooyinka waan dhisaynaa ummadda Soomaaliyeed ha heshiiso arrimaha hadalla caynkaas waxa way ka soo baxeen dan waxaan qabaa taas vision ma ahde ardada yeeraan jaamacadda u dhigay first yearka ku jira ayaa statements caynkaas sameyn kara waana la sameynayay for the last 20 years the shariifo inta uu sameynay hadalka uu sameynay vision ku deemaha statements yaro caynkaas sameys vision ka waa tan idin sheegay waxa weeye hadal ku fadhiya mustaqbalka aad arkaysaa sida uu eegyahay waxa laga fiirsanaya inaan loo dhawaan waxa lagu ordayo sida loogu ordayo iyo adigu halkaad ka galayso orodkaas as a leader that's what it is vision kama hayno ilaa maanta hadda qofkii hayana banaanka soo dhiga laakiin hadal de iska declaration statement yaro caynkaas iyo way jira vision kaasi noomu soo dhigin ya wax sidaa noo soo jiito qof waloo Soomaaliya King County miya deganti ya Soomaa good King County dadka degani ay had iyo jeer ku sheekaysanayaan xafaday doonaan ka yimaadaan daadoodu intay doonto ha noqoto aqoontoodu intay doonto ay ka sheekaysanayaan because it is compelling what garanaysan 2008 Obama markii uu campaign-ka ku jiray ya sidaas la wada noqdo what garanaysan habeenkii markii uu doorashada helay Chicago parkii ugu weynaaba la isku yimid what garanaysan dadkii cadaanka ahaa een waxba isku ahayn madowga nacba yani category ooyaya what garanaysan ooyaya vision. That's what vision is. It was there, Malay Somali always did. Show me in these last 6 years. Malay Somali inte istaagtay amba dhalinyaro jaamacad ku jirtaan noqoto. Amba dadka istaagtay always it was there. I haven't seen that. Marka wadanka gudihiisa visionku waxa weeye wadanka gudihiisa inaad macnayso waxa ka taagan oo dadka Soomaalidu marka sida ay noqdaan oo xitaa kuwa ku diidan ay dhahaan I have to think about this. Warninkii wuxuu yiri maanta ma ogtiin awana waxaan ka fiirsadaa hadda kuwa ku diidan kuwa kalena hadalkooda daa inta badan soo jiita wadanka gudihiisa xaqaaqiq ka taagan intaad fahamto ya inaad ka soo saarto policy ya ka duuda 20 sanadood iyo wixii ka badnaayna soo maray waan kula talinaa arintaas waan kula talin tan u tagnay ana qoray warqad group aan waan kula talin sidaa dadkii aan doorashada ku wada jirnay intii waaweyneyd la lahaa waa heavyweight cadow فرماجو عبد الولي عبد بادية عبد القادر عصبله جروب ده نوعين كاس وان صار سلا أنا كنت وان كنت هاجرين هذا نهدتك كلها ترتمي but think about this in a cool لابا صدح okay why we haven't heard anything
marka internally wadanka gudihiisa sida loo xaadhayay dadkii la iskugu soo celinayay 3+3 aan ka hadlayay wax looga qabanayo ma hayno ilaa imaka vision caynkaas siyaasadii dibaddana hadalkeega badaa ya siyaasadii dibaddana hadalkeega badaa safaaradii Soomaalidu ma jiraan as a presidential candidate I did research on this waan soo ogaaday safaarad walba halkay ka furan tahay ta furan ta xidhan dadka jooga waan soo ogaa because you have to do that research haddaad madaxtinimo wardiso iyo hadhow waxaad rabtaa inaad waxa dib u dhistee safaarad Soomaaliyeed oo maanta shaqaysaa ma jirto way jiraan meelo dad joogaan qaarkood ay ka soo haleen zaman qadiim Soomaaliga la iska jooga meesha oo ay daateen waad garanaysaa wixii Italy Roma safaarada Soomaaliyeed waa ta journalada laga soo saaray siday noqotay haddaan idinka sheekeeyo Washington DC safaaradeenu ku lahaan jirnay waxay ku dambaysay ee gurigii la iibiyay ee dawladda Mareykanku tidii lacagtii dawladda waxaan gelinaynaa escrow ya markaad safaarad dad dhisataan ayaan gelin waayo dadkii deganaa degmada safaaradu ay xafiisku ka furnaa ayaa dadkii la hadlay dawladdii yidhi way qoruntay meeshan Mareykan waa taqaanaanoo waa location intiina real estate ka taqaana haddii gurigaagu meeshu ku yaalay xaafadda ay xun tahay gurigaagu haddaad malyan geliso hoos buu dhacaya safaarad Soomaaliyeed oo maanta shaqaysa ma jirto dadka jooga intooda badanna waxa lagu geeyay 4.5 xamar markaan joogay doorashadan ku jirnay horteed yar safaarad baa laga furayaa baa la yidhi Turkey Ankara waxa la isku hayay war safaaradaas sideen u dhisnaa maxay noqon doontaa hawlahaas la qabanaya lagama hadlayo 4.5 haddii uu noqonayo safiirku reerka waanu reerkan noqdaa ku xigeenku waxaas la isku hayay markii dambe waxay noqotay Shariif Axmed iyo Shariif Xasan inay isku qabsadaan safiirka qofka noqonayo waxaan isku qabsadeen waxa weeye labada 4.5 halkay ka soo jeedaan qofka ka soo baxay inta kale hadalkayga badaa safaarad Soomaaliya siyaasadii dibaddana meel maanta ay taagan tahay ma jirto xasanayla maanta banaanka mu soo dhig kolka de waqtigii aroosku wuu dhamaado waxa la joogaa waqtigii la xisaabtamayay ya kolka soo ya soo dhawaada final point arintan competence vision kuwatan competence karti dawladda la awdisay Xasan ساعد ومدحنا كي هي أنا ساعد عاد كم نقانو رئيس الوزراء مركي يوري سن لولجي لكل من نيروبي باي هاي ولا إسكاي براي قولي يسيجوا عسومي يسيجوا حاسكيس قبل عادوا فهمت بدن عاشر ليرة وبارلمان كيدوني مكوجرته كان بين كنا وصوق قالوا وانقل يا بيري مركي دمنا وكجوك سدي marka xamarna waan isku baranay in muddo isagana waxaan ku arkay shakhsiyadiisa qof maamuus badan sharaf leh edeb leh naxariis leh waan ku arkay and that's important laakiin daylaay ma kama hayo ra'iisul wasaarenimo qaadade waa heavy lifting qaadade alaabta miisaanka ma hayo hadalna kama baha inaba de يدي سدا سين نقول سا هولوا سدا يسدا يا كما هين وحلا أفر بلود بالله مريا وحنا قنعية يا executive officer كي Soomaaliya الدولة ده he's the executive officer دستور كتاسو دقيقة حتى إذا آخرين دستور كآخرية وحوي رئيس الوزراء قوة حقوق يا administration كوا حيصير أنت رئيس الوزراء حفيز كيس ما هينو وحنا قنعية ما هينو هذا البوحبة ما هينو سكده وحكلو تنا دولتي بالله دي دولتي اللي دي واحد اللي يجي دولتي يربان دي سنة هي القرن مبدأ يجي كوجرته دولتي يرو ولي بأنه عينة تنا ده وين تيته إن كستوقل ضد كم ده حدا نوع عبد القادر كم دي هاي دود بين دحمر توما سجالبين نقول ما طبعا بين نقول كوي توما وزير وحاسد أي ديودين لكن الكائن للضعفه وتوا نقول هاي واي توما وزير بالسمي good at least ترى هان واي أنا كوا إحنا أمسنا هدانو هي القرن هاي شيلين كاد هلي كرتبه انتي سبضني وإن لقي Club 19
dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidibeen allow dhow Somaliland dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidibeen allow dhow ودرارتي للتاجي بدي ضيع عالمكيني دلانكينو نبض كسادي ودرارتي